gobolka Gado inta badan degmooyinkiisa horay uma aysan lahayn ciidan baliis ah tan iyo burburkii dalka ka dhacay kadib ciidanka milatariga oo horaantii sanadkii 2012 maleeshiyaadka al-shabaab kala wareegay Garbaharey ayaana ka shaqeynaya dhanka ammaanka dadka degan magaaladan ayaa soo dhaweeyay in ciidan baliis ah ay yeelato degmadan kuwaas oo tiradooda ay ka badan tahay 300 oo askari taliska booliiska Soomaaliya ayaa arintan sidii loo horgelin lahaa ku bixiyay waqti badan ciidankan waa ciidankii lagu xoreyn lahaa gobolkan Gado waa ciidankii ka qayb gali lahaa in laga sifeeyo cadowgan ummadda ku habsada dalka laga sifeeyo ciidankan waxaan ilaahay ka rajaynayaa muddo gaaban dhexdood in Bulaxawna baawur lagu tago Baydhabana baawur lagu tago Luqna baawur lagu tago soo sama in aynu u guntanno in aynu u kacno u istaagno dalkan u istaagno in aynu wax qabanno waxa garabkiina taagan oo marna aan idinka maqnaanayn taliyaha guutada iyo macallimiinta waxay soo baray iyaga toos ula shaqeyn doontaan intii muddo ah iyaga idin hogaamin doona iyaga idin tusi doonaan sida loo dagaalamo iyo sida amarka loo qaato markaad ku soo biirtaan ciidanka booliiska ma ayna meesha kaga harayaan inaad noqotaan kuwii guuleysta ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwii dalkan qaranimada gaarsiin lahaa aamin dalkan waxa iskale dhalinyaradiinaas iskale dalka idinka iskale laanshaha dalkan idinka iskale inaad xoreysaan idinka idinka rabaa ciidankan ayaa loo dhameystiray agabka ay u baahan yihiin iyagoona sidoo kale la bari doono shuruucda u gaarka ah booliiska Soomaaliya iyo waxyaabaha looga baahan yahay ciidankan cusub oo ka mid noqonaya booliiska Soomaaliya waxay si toos ah amniga magaalada kala wareegayaan guutada 10aad ee milatariga ee halkan ka howlgasha kuwaas oo muddooyinkii u dambeysay ka shaqeynayay arrimaha nabadgelyada waxaana arintan si weyn u soo dhaweeyay saraakiisha milatariga ee halkan ka shaqeysa dhanka degmada Baardheere isla gobolka Gado ayaa iyana waxa ay helaysaa ciidan baliis ah kuwaas oo ammaanka magaalada milatariga kala wareegi doona waxaana uu tababarkoodu socday muddo ka badan 6 bilood taliska milatariga ee Baardheere ku sugan ayaana soo dhaweeyay arintan waliba iyaga oo kaalin wanaagsan ka qaatay ciidankani halkan taagan oo tiradiisu ay tahay 470 maantana ku wareegay booliiska Soomaaliyeed waxaan rabaa si buuxdo inaan u xaqiijiyo ama aan u cadeeyo anigoo taliyaha guutada 10aad laga bilaabo maanta in ciidanku uu ku wareegay booliiska Soomaaliyeed siiba daraawiishta taliya aad bay farxad noogu tahay waana guul u soo hoyatay gobolkan ayay gobolku booliis ma lahayn nabad sugid ma lahayn booliis daraawiishna ma lahayn waxa joogay oo kali ah guuto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan qaybta 43aad ayadaas waxay ahayd booliis nabad sugid iyo ciidanka militariga waxaan nasiib wanaaga maanta inaan helnay fursad fiican iyo jaanis fiican oo ciidanka booliiska magaalooyinka ka shaqeyn lahaa inuu yahay maanta ciidanka sidaa darteed aad iyo aad baan maanta u wada faraxsanahay annagoona bidnillaahi kariim qaybta booliiska ee Baardheere ayaa tiradoodu ay ku dhowdahay 500 oo askari ciidankan ayaa qayb ka qaadan doona howlgallada ay sida joogtada ah u sameeyaan milatariga iyo kuwa Amisom ee Gado ku sugan